السلام عليكم. caawa waxaan rabaa inaan talo yar u soo jeediyo dadka ku nool magaalada muqdisho. 27 sano lasoo dhaafay waxaad u afduubnaadeen qabqablayaal. qabqablayaashaas waa ahaadeen kuwa qabiil, kuwa diimeed, kuwa ganacsi, ama ha ahaadaano kuwa siyaasadeed. waxay idin diideen nabad, waxay idin diideen nolol, way idin dileen, waxay idinka hor istaageen dowladnimo. si taalamida waxay u cuuryaamiyeen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. dowlad walba oo la soo dhiso waxay ku banjar jirta magaalada muqdisho. sababtuna wax kale ma aha. waxaa jooga magaalada maafiyo manaxyaal ah oo haysta hanti iyo hub. mar walba dowladda timaada ayay ka awood badan yihiin. noloshooda ama ganacsigooda ama ilahooda dhaqaale iyo jiritaankooduna wuxuu ku xiran yahay inaan dowladda helin. hadda waxaa bilaabatay dowladda inay bilowdo isku day ah inay dadka hubka ka aruuriso. maxaa yeelay haddii aan dowladdu hubka gacanta ku dhigin nabadda heli maa. haddii aan nabadda helinna dowladnimo ma jirto. durbadiiba waxay bilaabeen inay dadkii ku orkacsadaan oo yidhaahdaan qabiila loo dan leeyahay, annagaana loo socdaa, waxaa la rabaa annaga in hubka nagala qaado. balay bilaabeen. waxaasoo dhan waa been, waa boor isku qaris. ujeedku wax kale ma aha. dowladda aan fashilinno si aan u sii jirno. idinka maxaa idin mustaqbala marka? haddii aad maanta la safataan sidii mar walba dhici jirtay oo aad tuugada garab siisaan si ay is hortaagaan dowladda, maxaa idin mustaqbal? sow idinma dilin, isbaarin idinma dhigan, carruurtiinni ma dhigin mustaqbal la'aan, iskuulle la'aan iyo nolol la'aan. waxaa la yidhaahdaa noloshu haddaysan fikir lahayn macno male. waxaad u baahan tihiin inaad in yar bal dib u milacsataan taariikhda dhow. dowladda cabdiqaasim salaad xasan yaa u diiday inay degto madaxtooyada? yaa fashiliyey oo hor istaagay? dowladda cabdullaahi yuusuf kaba soo tagba. haddii macnaha qabiilka ay idiin sheegayaan oo sax yahay, maxay shariif u taageeri waayeen? xasan sheekh maxay u taageeri waayeen? sidii ay cabdiqaasimba u diideen ayay xasan sheekhna hortaagnaayeen, shariif sheekh axmedna hortaagnaayeen. ma ogoleen in hubka dhiibaan. maalin ilaahay keena way cay jireen madaxda, way diidanayeen in tallaab hore loo qaado. hadda markuu madaxweyne farmaajo yimid, haddana waxay rabaan inay idin isticmaalaan mar kale. si doqonnimadii ay idinku yaqaaneen oo 27 sano ay idinku barteen ay idin marsiisaan mar kale oo ay u dhigtaan asbaarooyinkooda. waxaad u baahantiin inaad iska dhiibtaan hubka oo dowladda gacanta u gelisaan. mustaqbalkiina iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan nolosheenoo dhan waxay ku jirtaa inaan helno dowlad. in hubka gacanta loo geliyo dowladda. tuuga waxba idinma hayso. maalin ha idin yidhaahdiino daarada soo socda. maalintii nin hawi ah yimaadaan ha idin yidhaahdiin yow yah ma abgaala mase habargidir. haddii abgaalka loo dhiiban ha yidhahdin maarti abgaala mase waa wacbuudhan ama macayra mase waa sacad. ha idinku cayaarana mar walba ee rumeeya. waa laga soo gudbay, waa laga yimid. waxaan taagannahay 2017. qabiil iyo qurunkiis iyo doqonnimo waa u dhammaatay. hala taageero dowladda, ha lala shaqeeyo, hubkana iska wareejiya. waxaan u baahannahay nolol iyo nabad. uma baahnin nin reer hebela, uma baahnin nin qabiil hebela. waxaan u baahannahay nin Soomaaliyeed, madax Soomaaliyeed oo hufan. waxaan aaminsanahay ragga hadda jooga, ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba inay yihiin niman ilbaxa, aqoon leh, dareen ummadnimana xambaarsan oo aan waxba ku falin qabiil. marka inaad inta kuwii wanaagga iyo macnaha lahaa iska dayso aad dhegaysato mooryaantii 27 sano ummadda kala dilay, waa nasiib darro. dowladdana waxaan leeyahay hubka qaada, hal taaka ha uga dhimina. bal aan aragno maanta xilligan la joogo